فيديوغان waxaan kaga hadlaynaa ama casharkan waxaan kaga hadlaynaa present value ay leedahay ordinary annuity. Marka ordinary annuity saad aragtiin is the amount is defined as the amount due at the beginning of the term and is equivalent to the sum of the present value of all payment comprising the annuity. Marka waxa weeyaan present value of an ordinary annuity waa the amount due at the beginning of the term. intaadan bilaabin termkaaga lacagta la rabo inaad haysatid sifa aad u heshid yani Soomaalidan garan ma lacagta laga rabo inaad haysatid sifa aad u heshid periodic payment. marka lacagtaasna waxa la mid tahay present values of all payment comprising the annuity. marka present value of all payments aad heli doontid ama aad bixin doontid ayay la mid tahay isku darkooda. marka yani in simple terms waxa weeyaan present value annuity da tahdart inaad heshid waxay la mid tahay payment yaasha aad heli doontid ama aad bixin doontid hadii la discount gareeyo la isku daro waxay ku siinaysaa present value annuity daas. laakiin si ka fudud baa jiro oo formula waan idin tusi doonaa oo ku siinaysa directly present value ordinary annuity. example ana waan qaadan doonaa. example koobaad waxa lagu dhahay how much money is needed now to provide US 500. how much money is needed now meeqa lacag ayaa la rabaa hadda to provide US 500 at the end of each year for 15 years if money earns interest rate at 12% per annum effective. meeqa lacag ayaa la rabaa inaad hadda haysatid sifa aad u heshid $500 dhammaadka sanad kasta for 15 years haddii lacagtaas ay helayso ama ku soconayso interest 12% per annum effective. marka waxa weeyaan waa present value baa lagu weydiinaya annuity da ay leedahay simply. okay markii koobaad waxaan sameynaynaa timeline-keena ayaan sawiranaynaa marka ninkan waxa weeyaan $500 ayuu qaadanayaa sanad kastaba dhammaadkiisa sanadka koobaad sanadka labaad sanadka saddexaad sidaasay ku soconaysaa ilaa laga gaaro sanadka 15aad. marka meeshan waa 0 marka sanadka koobaad wuxuu qaadanayaa dhammaadkiisa $500 sanadka labaad $500 sanadka saddexaad $500 ilaa laga gaaro sanadka ugu dambeeya wuxuuna qaadanayaa $500. okay inta hadda dugtay waxaan rabnaa inaan ogaano ninkan meeqa ayuu hadda dhiganayaa sifa uu helo sanad kastaba $500 meeqa ayuu hadda dhiganayaa hadduu investment noocaas rabo inuu helo marka waa annuity tan marka present value ayaan raadinaynaa present value ay leedahay annuity tan present value waxaan ku helaynaa formulada tan oo ah R/A/I/N tan waxa weeyaan present value ay leedahay annuity. waxa ku khaldan future value formulada future value waa R/S ya S weeyaan I/N. marka R/A/I/N haddii aad expand garaysid waxay noqonaysaa R to isma bedelayso waa iska R marka paadkan A ayaa waxay tahay sababtan waa 1 minus 1 plus I raised to power negative n weeyaan raised to power negative n ya kadibna waxaad u qaybinaysaa I. marka formulada tan aad aragteen aan ku qoray waxa weeyaan waa formuladii present value annuity markii la joogo oo laba I way sameeyaan garan. marka haddana galgalida values R2 waxa weeyaan waa periodic payment aad helaysid waa $500 waxaan ku dhufanaynaa 1 minus 1 plus I waa 12% marka waa iska 1 plus 0.12 raised to power negative n2 waa number of times gaaga oo 15 soodan garan. marka waxaan number waxaad u qaybinaysaa I oo ah 0.12 marka dad calculation ka samayso waxa ku soo baxaya US 3405.43. marka ninkan haddii uu rabo in uu investmentigan sameeyo oo $500 ay sanad kasta dhammaadkeeda uu helo waa in uu hadda
hadda waa inuu dhigtaa $3,405.43 Soomaalian garan marka intaas waa inuu sameeyaa marka u fiirso formulatan waxay ku fududeynaysaa inta hadda aad sameyn lahayd present value ayaan raadinayaa payment-yaashan dhan present value raadinaya kadib waan isku wada darayaa intaad sameyn lahayd because ayada laftarkeeda ay ku siinaysaa 500 haddaad dib u celisid aad raadsid present value-geeda at 0 500 oo qaadanayo sanadka labaad sidoo kale aad raadsid present value-geeda sidaas aad guddi ku samaysid oo isku wada darsid ayagana isla intan ay ku siinayaan 3,405.43 laakiin waxaa ka fudud inaad isticmaashid methodkan annuity. Example 2 waxaa lagu dhahay a student who borrowed some money to purchase a car was to repay the loan with monthly installments of $150 for 3 years. Arday baa wuxuu soo deynsaday lacag wuxuu soo deynsaday lacag siba uu gaari uga to repay the loan was to repay the loan with monthly installment. Marka lacagtii uu soo deynsaday uu kusoo gatay gaariga ayuu wuxuu rabaa inuu iska bixiyo si bil ahaana with monthly installment of $150 for 3 years. muddo 3 sano ayuu rabaa inuu $150gaas bil kasta bixiyo sifa uu isaga gudo loonkii. Calculate the value of this repayment. Calculate the value of this repayment at the beginning of the loan. waxaad raadaysaa value-ga ay leedahay repayment yan at the beginning of the loan. If hadday tahay interest rate-ku 9% convertible monthly part A part B gana 12% convertible monthly. marka in simply ardaygan lacag buu soo deynsaday gaari uu kusoo gatay xorwaad inuu iska bixiyo bil kastana wuxuu bil ahaan uu rabaa inuu iska bixiyo bil kastana wuxuu iska bixinaya $150 muddo 3 sano ayuu wadayaa. marka waxaan ka rabaa inaan raadino the value of this repayment ama the present value ga ay leedahay repayment-gan uu loankan iska bixinayo. baatayga interest rate-ka hadday tahay 9% waa 9% laakiin waxaa la compound garaynaya monthly. part B-gana waa 12% hadday tahay interest rate-ka laakiin convertible monthly. example 2-ga hadda marka haddii aan timeline-keena sawirano ardaygan raba inuu iska gudo loankan ayuu rabaa inuu iska gudo marka wuxuu rabaa inuu bil kastaba u bixiyo $150 for 3 years. marka bishii koobaad bishii labaad bishii saddexaad sida ay ku socoto ilaa laga gaaro 3 sano ay dhamaato oo 36 bilood markii bisha 36aad marka bil kasta dhamaadkeeda wuxuu bixinayaa $150 ilaa laga gaaro bisha 36aad $150. marka iyada laftarkeedu waxa weeyaan waa form of annuity. marka waxaan ka rabaa present value ay leedahay annuity-dan. marka isla formuladii present value aan isticmaalina marka present value waxa lagu raadiyaa waa RAI all over n soma oo u dhiganta R1 minus 1 plus I raised to power negative n divided by I. formula tan yarta aad aragtiin macnaheedu waa yani sida tan way markii la expand gareeyo. okay inta aad ogaatay waan substitute gareynaa. R2 waxa weeyaan waa the periodic payment-ga uu ninkan bixinayo. marka R2 waa 150ka uu bixinayo ardaygan. aydan imanayna aydan waxa weeyaan aydu waxaan la dhahay waa 9% aydu waxaan la dhahay waa 9% convertible monthly marka waa 0.0 waa 0.09 divided by 12 marka 0.09 divided by 12 waxa weeyaan waa 0.0075 ayda lagu siiyay waa 9% interest rate-ku macnaha waa 9% laakiin waa convertible monthly marka 12 baad u qaybinaysaa sifaad u raadsid interest rate-ka per month ah. marka inta markaad ogaatay formuladeeni baan aad just hoos u isticmaalayna formulada marka present value waxay la mid tahay R oo ah 150 waxaad ku dhufataa 1 minus
1 plus 0.0075 but raised to power negative n oo ah negative 36 ilan n10 waa 36 kadib waxaad u qaybinaysaa i-dii oo ah 0.0075 hadda intaas samaysid waxaa kuu soo baxaya aad calculate garaysad calculator hadda isticmaashid waxaa kuu soo baxaya US 4717.02 marka present value ay leedahay annuity interest rate markay tahay 9% oo convertible monthly waxa weeyaan waa 4717.02 part B-ga wax fara badan iskama bedelayo waxa weeyaan interest rate compass bedelaysa marka meesha hadda iska tirtirno meeshan unbaa isbedelaysa booskii I ay noqon lahayd 0.09 waxaan isticmaalaynaa part B-ga waxaan lahay waa 12% convertible monthly marka meeshan waxay noqonaysaa 0.12 way interest laakiin waa convertible monthly marka 12 baan u qaybinayna waxa noo soo baxay 0.01 marka 0.01 waa interest rate per month so idan garan marka present value sifaan u raadin annuity ay leedahay isla formulada baan isticmaalayna marka r waxay noqonaysaa 150 waxaan ku dhufanaynaa 1 minus 1 plus I marka I waa 0.01 raised to power negative n waxa weeyaan n10 waa iska 36 soma raised to power negative 36 ay noqonaysaa marka waxaan dhanba waxaad u qaybisaa 0.01 marka hadda haday aad calculate garaysid meeqa ku soo baxay waxa ku soo baxay US 4516.12 macnaheedu marka waxa weeyaan interest rate-ka hadda haday noqoto 12% oo convertible monthly present value annuity ay leedahay waa 4516.12 okay badkii waxaan gaarnay exercise isku daya an annuity lagu dhahay pays US 500 for 5 years and then US 300% per annum for 4 years. Calculate waxaad raadaysaa the value of this annuity. Annuity tan waxaad raadaysaa value-geeda ama present value-geeda 1 year before the first payment. hal sanad ka hor first payment adigoo isticmaalaya annual interest rate of 11%. marka sida aragtay waa annuity soconaysa waa annuity bixinaysa $500 shanta sano ugu horeysa kadibna $300 afarta sano ku xigta marka waxa laga rabaa inaad raadsid present value annuity tan ay leedahay soo garan adigoo isticmaalaya an interest rate of 11%. ansada waxay ku qoraya shaashada marka intaas waa hagaag hadan intan gaaranay video soo socda waxa ku saabsan yahay annuity due waa nooca labaad oo annuity way badan yihiin horta runta noocyada laakiin labada tan ugu caansan ordinary iyo due marka taasaan qaadan doona daawada okay walaalayaal waxaan rabaa dhamaadka videogan inaan idin tuso habka aad website Facebook page keena aad ugu soo biiri kartiin marka meeshan Facebook search-ka ayaad imanaysaa waxaad ku qoraysaa schoolka magaciisa waxa weeyaan waa waxbarasho school yani website page keena laakiin search-ka hadda badan waxa ku soo baxaya waxbarasho af Soomaaliya inta ku qoraysaa waxbarasho af Soomaaliya ku qoraysaa waa magaceeni ugu horeeyay marka Soomaalitiin magacan schoolka waxbarasho school kan ayaad ku dhufanaysaa soo idan marka waxa weeyaan page keeni waa kan soo idan garan dadka cusub tahay follow aad leedahay waad like garaynaysaa waad saas ugu soo biiraysaa soo idan garan meeshan badan ku qornaa sheegtid update keena soo idan garan hadda waxaan bilownay course oo ah mathematics of finance ashara cusub aan soo saarayno ay sheegtay ashara cusub hadda dhawaan soo saari doono YouTube keena channelka YouTube kan soo saari doono waa ashara ku saabsan mathematics of finance marka wixii post ama announcement
inta kusoo biira channelkan kusoo biira waxbarasho iskuula ku qoran kanna waa login sameeyay arkin login noo saaran youtube-ka waa kan marka meeshan waxaad ku qoraysaa waxbarasho af Soomaali waad ku qoraysaa hadda waxbarasho iskuul ku qortay waxa weeyaan kuma soo baxay because waa magac hadda cusub aan u saarnay iskuulka marka waxbarasho af Soomaali aad ku qoraysaa channelka ku soo baxa ugu sareeya ayaa weeyaan kaasaad ku dhufanaysaa linkigan سويدان مركز سمية صفات وسو بيرتين page كينا like جرايا لا صعدة حوالين وحي update أنت مقولين وحي comment أنا أنت تقولي كرتين إن شاء الله مع السندين